waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka talo iyo tusaale uu maanta marti inoogu yahay Cabdi Xaashi Aaqiro. ku soo dhawaaw barnaamijka kan. oo maasantahay awaadir oo ku dhawahay. marka hore waxaan ka codsanaynaa inaad faallo yar naga siiso qofka aad tahay. oo maasantahay awaadir de qofka horta waad sheegto ani Cabdi Xaashi Aaqiro la yiraahdaa. waxaan ka mid ahay aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee dalkan ku nool. gaar ahaan wax badan arrimaha bulshada ka shaqeeyay. fiilkayga haddaan macnaha taabto ani waxaan bartay waxa la yiraahdaa radiology dalkan baan jaamacad uga baxay. bayskayguna waa isbitaalada Queen Mary's Hospital oo ku yaala xaafadda la yiraahdo Sidcup South East London. marka apart from that marka laga reebo intaasna de shaqadaydu inta badan waxay la xiriirtaa sidii dadka nagu isku caawin lahayn arrimaha socialka iyo problemska jira iyo sidii loo xalin lahaa ama lagu campaign gareyn lahaaba guud ahaan arrimaha Soomaalida haday noqon lahayd mid dalkana aan ku noolnahay ama Europe ah iyo haday noqon lahayd mid dalka gudihiisa oo aan programmo badan ka sameynay aniga keligay ma ahayn waxa dad badan oo marka dhinacna waxaan ka nahay activist oo arrimahaas aan ololaynaa dhinacna social life-ka halkan nolosha halkan ayaan maaragtay isku daynaa inaan wax badan ka qabano marka taas fieldiga aniga ka shaqeeyana shaqadeedina waa taas umaasantahay. waxaan jeclahay markan inaan u galno maxaa markaa kalifi karta in caruurtii guriga laga qaato ama in caruurtii ma garanaysa iskuulkii ku xumaadaan. runtii waa very massive weeyaan areadaas marka laga hadlayo aad bay u ballaaran tahay. laakiin waxaa wanaagsan lahayd inaan group u fiirino tusaale ahaan problemku ma ahan waxaan dhanna horta way isku xiran yihiin innaga socially nolol ahaan iyo dhaqan ahaan markaan dalkan nimid waxaan ahayn dad nool dhaqan leh luqad leh nolol leh system leh markaan halkaan nimidna waxaan u nimid dal iyo dad system leh completely ka duwan kii horeeto oo anagu wadanay marka wax la yiraahdo cultural clashes dhacay marka oo is hirtiyaan dhaqamadii dhaqamadii marka waxay ka bilowdeen inay is hirtiyaan dalkan inagu waxaan arki jirnay Soomaaliya caruurta oo kaleeto waalidka aad bay caruurta baariyaal u yihiin waa la tababaraa waa lagu qayliyaa haddii loo baahdana oo sometimes ay dhacdana waa la dilaa waa macnaha ul baa la qaataa waa la xanuujiyaa macnaha dilku ma aha in ka looga sameeyo laakiin waa la xanuujiyaa si loo fahamsiiyo qaladkan inuu yahay qalad xun mar dambana uu sameeyo marka laakiin halkan sharciyan waa mamnuuc in canug la taabto la dilo wax jirkiisa muuqanaya ay ku dhacaan as well as in xitaa psychologically cunuga lagu qayliyo wax badan laftigeeda lama ogola marka waxaasoo dhan waxay yiraahdeen sharciyan waa xadgudub cunuga lagu xadgudbayo dadkanagu marka inay turjumaan arrintaas way adkaatay oo ay u turjumaan dhaqankanagii iyo noloshanadii in loo turjumo way adkaatay waxaa loo baahan yahay marka runtii dhibaatada jirta marka waxaan markii arrintaas ay dhacday waalidkiina aysan dad systemkii dalkan ka jiray ku milmay oo dhex galay aysan noqon ama wax ku bartay caruurtii ay noqdeen kuwa halkan ku dhashay ama halkan wax ku bartay caruurtu automatically waxay qaateen dhaqanka halkan ka jira waxayna og yihiin waliba xuquuqda ay leeyihiin tusaale ahaan cunuga markuu yeer 6 gaaro dalkan waxaa loo sheegaa wuxuu leeyahay maalin dhan ama week dhan oo xiisad ah oo iskuulka uu ku leeyahay loo sheegayo rightska uu leeyahay iyo in aan qofna jirdili karin qofna waxba ku sameyn karin xitaa waalidku inay istaaban karin marka anagu dhaqankanaga waxay ahayd anagu waxaan caruurta u dili jirnay oo edbin jirnay ula dagaali jirnay wanaagooda si aan ay u noqdaan kuwa successful ah mustaqbalka oo maaragtay wax wanaagsan gaara laakiin dalkan maadaama aan nimid adduun kala nimid waxaa la hayaa oo dalkan ka dhacda in waxyaabaha aad u xunxun in waalidka saas u fikirayo Soomaaliya joogay dalkan kuwa u dhashay ee leh qaab kale inay u fikiraan cunugii abuse gareeyaan dilaan dhinacyo badan u isticmaalaan waxyaabo aan barobarahin ku sameeyay marka sharcigu wuxuu protect gareynayaa caruurta noocaas marka waxa lama oran karo kuwa yimid laga saaro marka kulligood baa sharciga wada sameeyay Soomaalidu waxa la rabaa marka inaan turjuno si cilmiyana sida aan uga falgalayno sharcigaas iyo caruurteena
sida aan u face garaynayno waxay dib inaan u balan garayno basically waxa aan samaynayno caruurteena waxaan ku samaynayno iyo qaabka aan ula hadlayno ama aan ula macaabilayno inta badan cunuga marka la canaananayo ama lagu ciqaabayo fal dembiyeed uu sameeyey siday taaba ha noqotee waxa weeyaan waxaa qaab bay dadka bulshooyinka u isticmaalaan marka annaga dhaqankan iyo sharciyadani way ka hor imaanayaan saan isla fahamnayba waxa aan hore u samayn jirnay badalkeeda waxaa jira one way inta badanna soomaalidu laftigoodu way isticmaashaa laakiin ma ahayn arrin macnaha aada u badan tusaale ahaan waan naqaanaa dadka soomaalida boqolkiiba macnaha wax badan exactly ma sheegi karana mar laakiin dad badan ayaa caruurtooda la xiriira oo communication sameeya communication macnaha waxa weeyaan la hadal caruurta inay la hadlaan oo intay dili lahaayeen ama ay ku qaylin lahaayeen oo ay dhaawici lahaayeen cunuga maskaxdiisa intay meel fariisiyaan la sheekaysta dareensiya waxa uu sameeyey iyagoo isticmaalaya qaab wada hadal ama xiriir uu cunuga la dhistay oo hore uga dhexeeyey taasna waxay keenaysaa inuu isfaham meeshaas ka yimaado marka laftigeedu dad badan oo caruurta ma dilaan laakiin haddana sharciyan dalkan waa dembi waxaa la rabaa marka in aan ka fikirno si canugii uusan gacanta uga bixin waayo qaladka waalidku hadduu sameeyo oo tusaale ahaan eedaasu ay timaado qoladan social serviceku straight away involved bay ku noqonayaan familka marka waxaa la rabaa in dadka bulshadu aysan ka fikirto waxaan consequencega ka imaanaya maxay tahay at the same time haddana waxaa la rabaa inaan cunuga la dayn oon la dhihin cunugan haddaan la hadlo waa macnaha waa la qaadanayaa ee cunuga la xakameeyo lala hadlo la canaanto siyaabo badan loola hadlo siyaabo badan loo dareensiiyo waxyaabaha qaladaadka uu sameynayo si loo xakameeyo qaladaadka uu canugaasi galayo taasna inta badan waalidku way ku wala duwan yihiin waxay ku xiran tahay marka waalidku sida uu well prepared u yahay oo ugu diyaarsan yahay arrintaas waxay ku xiran tahay aqoonta waalidka waxay ku xiran tahay waalidku sida iyaga laftigooda loo soo rabeeyey ama loo soo koriyey markii ay yaryaraayeen waxay ku xiran tahay familkaas hadday noqon lahaayeen immediate familyga dadka ugu sokeeyo qaraabadaahu sida ay u nool yihiin arrimahaas oo dhan ay ku xiran tahay marka iyada laftigeedu waa arrin u baahan in la daraaseeyo runtii aada looga fikiro laakiin the best way forward oo ugu wanaagsan waxa weeyaan in cunuga iyo waalidku ay leeyihiin isfaham iyo wada hadal u dhaxeeya ay isku fahmi karaan oon ahayn midka dagaalka ama aggressiveka dhibaatooyinka guud ee jira annagoo markaa mid u sheegayna maxaa ka mid a waa dhibaatooyinka waad horta waxaa ugu horeeya lack of communicationka xiriir la-aanta waa dhibaatada koowaad dhibaatada labaad waxa weeyaan wax la yidhaha behavior problem oo macnaha dhibaatada ama dhaqan xumada dhaqan xumadu waa dhibaatada ugu weyn ee keenta in cunuga uusan gurigana si fiican uga dhaqmin bulshadana uusan si fiican uga dhaqmin dhinac walbana keeni karta inuu ku guul daraysto waxaa ka mid a wax la yiraahdo ignorancega oo ah inuu qofku kaba warla-yahayba waxa environmentiga xaaladda ku wareegsan oo wax walba uusan ka soo qaadayn wax weyn waalidkuna uusanba u arkinba macnaha inay yihiin dad iyaga laftigoodu hanan kara tusaalahan waxaa dhacda cunugiyaa luqadii ma yaqaanaa hooyadii iyo aabihii luqadii ma yaqaanaan the minute marka cunugii baa la socda waxay isku dayayaan mararka qaar ama shoob bay tegayaan dukaan ama meel bay tegayaan luqaday ku hadlayaan cunugu markuu arko waalidkiisa oo ku hadlaya poor english ma fahmayo aada u liita ma fahmayo inuu dalkan isagoo ku dhashay hooyadiisa aabihiisna dal kale ka yimaadeen automatically wuxuu u qaadanayaa inuu ka aqoon badan yahay tusaale waxaan dhacdoon aragnay cunug waalidkiis iskuulka looga yeeray oo hooyadiina hooy iskuulka ha tegin maxaa dhacay leeda because waa la igu kacayayaa buu leeyahay waxaad ku hadlaysaa rubbish language poor language baad ku hadlaysaa aad u liidataad ku hadlaysaa marka waxay gaarsiisay in cunuga uu ka xishoodo waalidkiis waa ignorancega waxyaabaha aan la isku qaldayn oo u baahan in bulshada shacabka macnaha dadka caruurta in laga wacyigeliyo in la kala saaro cunuga loo kala saaro waajibaadka iyo respectiga iyo mas-uuliyadda iyo qiimeynta waalidka uu leeyahay iyo dadka kaleeto levelka ay familka ku leeyihiin ama iskuul ha noqoto ama dadkale sida macnaha arrintaas isku raaci karto arrinta problem kaloo jira waxa weeyaan parental problem tusaale ahaan waxaa dhacda waxa la yidhaha parental problemku waa
waalidiinta problemka waalidiinta dhibaatada waalidiinta oo ah inaan cunugii laftigiisa daryeel fiican la siin laga taxadarin noloshiisa la fiirin mustaqbalkiisa waxaa ka mid a tusaale ahaan inta badan bulshadu waxay sameeyaan macnaha cunugu waa inuu probably dress yahay waa inuu waxyaabaha immediate needs ugu muhiimsan nolosha waa inuu helaa waxaa ka mid a labiska waxaa ka mid a cunto adequate ah oo ku filan cunugu inuu helo waxaa ka mid a inuu clean yahay oo uu nadiif yahay ama isaga ha lagu tarbiyeeyo inuu musqusha galo iskaliin gareeyo qubaysto labisto ama in lagu asaga maaragtay ama qofka waalidka ahay uu arintaas barfaar gareeyo hadduu cunugu yar yahay responsibilityga xilliga cunugaas la siinayo oo la leeyahay responsible adaga mas'uuliyadaadu tahay inaad habeenkii qubaysatid si fiican u seexatid nadiifisid jirkaaga ka shaqaysid anaga islaam baan nahay in la baro inuu yahay cunugu inuu leeyahay duty of Islam in waajib islaami uu saaran yahay from the age of 9 ama 7 oo kaleeto la yiraahdo salaada wada tukataa wada soo kacdaa inaan xitaa la dareensiin in control ugu hayo ay tahay responsibility isaga saaran marka arrimahaas oo dhan waxa la yiraahdaa parental responsibility oo runtii ama problems jira oo parentiga ka dhex jira arinta ku xigta waxaan inuu waxa la yiraahdo xiriir la'aanta iskuulka tusaale ahaan cunuga iskuulka tagaya problemka iskuulada ka jira cunugii ma garanayo waalidku levelka ama maantay waxa uu soo faa'iiday waa in cunuga continuous monitoring wax lagu sameeyaa dabagal joogto ah oo ah macnihiisu war maanta muxuu bartay weekend suuxa wax barashadiisu tahay xagee buu joogaa muxuu achieve gareynayaa hadeerta educational achievement gooni baan u qoray ayadana oo wax weyn overall sanadka markii la isku la dhameeyo cunugii markaad mostly carruurta Soomaalida fiirso kuwa badan active ku jira laakiin they are underachieved wax weeyaan ma gaaraan meeshii loo baahnaa meeshaan Soomaaliya tusaalahan educational level kan naqaan anaga cunuga waa la reebayay sanadkan haduusan baasin uu dhacay carruurtii la socday oo ku age-keedu ka haray laakiin halkan ma aha waxa leeyahay D level baa tahay ama E level baa tahay la socdaa saaxiibadiisu aqaartii oo isla socdeen carruurtii oo socod taas waxay keentay problem awaadir khatar ah oo ah inay xitaa waalidku fahmin cunugan levelka uu markaas joogo iskuulka markii maxaa la yiraahdaa maalinta sanadka ugu dambaysa maaragtay learning review day-ga la yiraahdo waalidiinta loo yeero waalidiintu inta badan ama waxba ma aqoraan wax ma aqriyaan ama warqadaba inta si crazy-nimo loo arka ayaa loo tuuraa iyadoo aan macnaha parental responsibility ay tagaysaa waalidiinta waajibka saaran oo kale warqadii waa iska tuuraya ma learning review day tagaysa malaha macalinku fadhinaya waqtigii lagu talagalay markii lagu waayo waa iska baxaya cunugii marka straight away markaas cunugaaga waxa la fahmayaa inaadan adiguna diyaar u ahayn isaguna uusan gaari doonin heer wanaagsan saas daraadeed wuxuu mar walba achieve gareynayaa uu gaarayaa macnaha level aad u hooseeya waxbarashadiisa taasoo mustaqbalka collegekiisa iyo jaamacadiisa iyo xitaa shaqada dambe saameyn doonta macnaha tagitaanka iskuulka cunuga waxa laga rabaa maalin walba inuu iskuulka tago oo uu iskuulka markuu tago macnaha wax walba iskuulkii tago marka hadduu marka uusan tegin sanadkii uu wax yar ka tegay ama se waxay ku cabiraan statistics ay ku cabiraan 85% ayuu cunugan iskuulkiisa yimid 95% buu yimid 100% buu yimid marka ayada laftigeedu waxyaabaha carruurta lagu dalacsiiyo ay ka mid tahay hadii marka uu cunugii aan iskuulka la geenin oo waxbarashadii uusan si toos ah uusan maalin walba u tagin dhibaatadeeda ay leedahay waa dhibaato weyn aad jirta oo runtii qaar ka mid ah waalidiintu aysan xil iska saarin tan labaad oo igu xigta waxa weeyaan saaxiibada xun oo tan ugu muhiimsan runtii laano waxa la yiri Soomaaliya ku maamulada saaxiibka kumana cadeeyo kumana madoobeeyo waxa uu yahay ayuu ka dhigaa carruurtana way saamaysaa arintaas haddii canugaagu uu leeyahay saaxiib xun waxaan ka wadaa tusaale ahaan deriskoo kaleeto ama eheladoo kaleeto waxaa macquula inay jiraan carruur aan si wanaagsan loo tarbiyeyn haddii cunugaaga marka cunugaas uu ku leeyahay saaxiib ma sugaysid inuu cunugaagu uu fiicnaado hadduu fiicnaadana waa by chance waa nasiib laakiin haddana
inaad cunugaaga u raadiso saaxiibo fiican waa wax muhiim ah runtii oo masaajidka lagu xiro oo lagu xiro caruur wax baranaysa oo kuwa aad ogtahay inuu waxbarashadoodu fiican yihiin aad ku xirto oo isaga aad maaragtay inta badan la raadiso dad ahlu fikra ahlu aqli dad doonaya inay mustaqbalka wax gaaraan arintaas runtii saameyn badan ay caruurta ku yeelanaysaa waayo ciyaalku inta badan ama caruurta ubadku waxay inta badan ku xiran yihiin sida generationkaas ayaga la socdaa ay u nool yihiin ayay u noolaanayaan marka cunugaaga hadduu cunug criminal ah oo dambiile ah oo daraagiiste ah oo macnaha aan si akhlaaq wanaagsanayn hadduu raaco oo saaxiib adoga dhigtid ma ahan bil kadib ma ahan sanad kadib immediately isla saacadaas ayaad gurigaaga ka dareemaysaa ka daran waxay tahay taasi inta badan Soomaalidu hal cunug iyo ma dhalaan inta badan waxaan la dhalnaa alxamdulillaah rabbil caalamiin caruur badan 2 4 5 6 10 15 qaar baa dhala marka cunugii kaliya markuu guriga soo laabto hadana walaalkiis ayuu gudbinaya walaashiis buu gudbinaya wadadan anshaxumada qaabkay ku bilaabi karaan maxay tahay waxa weeyaan waa nooca symptomska ama waxa lagu ogaan karo waa runtii waxay ku xiran tahay adduunka markii qofka cudur ku dhaco waxa weeyaan cudurkaasi qofba sibuu u qabtaa inkastoo hal cudur qof qufac baa lagu gartaa qof qandha lagu gartaa qofba waxbuu sameeyaa marka symptomsku marka ama waxyaabaha loo yaqaano calaamaduhu inta badan way kala duwanaan karaan waxayna ku xiran tahay cunuga dabeecadiisa dabeecadda uu cunugu leeyahay ayay ku xiran tahay arrintaas marka haddaad fiiriso waxyaaba marka kow lagu garan karaa horta waxay tahay macnaha cunuga iyo waalidku waxay leeyihiin xad hooyo iyo aabe iyo cunug bay kala yihiin waxaad arkaysaa cunug soo afcelinaya waxyaabaha calaamadaha ku tahay cunuga kugu soo afceliyo waa first step oo ah gaaladu waxay yiraahdaan confrontation ka horimaad uu ka horim minadku kugu soo afceliyo uu ka horim mad u qaatid garaacid xal ma aha saas waxa la rabaa marka ayada laftigeeda waxa la rabaa inaad inta aan dhameeyo tahay waxa la rabaa inaad marka hore fahamsan tahay marka uu kugu soo afceliyo stage-ka uu socdo inaad fahamsan tahay adiga laftiga garanad hadaada marka wax ka qaban marka dambe step-kii uu socday ayuu gaaraya arintaas waxa marka associate la oo la xiriira oo toos ula xiriira da'da tusaalahan cunugu markuu gaaro 9 sano iyo wixii ka weyn 10 carruurtu waa kala activesan yihiin laakiin from the age of 9 laga soo bilaabo age-ka 9ka ayay bilaaban kartaa arrimaha noocaas marka ayada laftigeedu da'du xiriir bay la leedahay marka insha Allah carruur badan waxaa jirta abaadiro Soomaaliyeed oo aad u jeclaystay oo qaar badan aan garanayo runtii oo aad u wanaagsan laakiin hadiiba cunugu waalidkii ku soo afceliyo problem uu abuuro oo uusan hadalkii maqlaynin ama uusan dhageysanaynin waalidkii waxay leeyihiin ama uu qofka waalidka hay oranaya ama hooyada ama haabaha waa big problem dhibaatada meesha ka bilaabatay waa halkaas dhaqan xumada soo socota waxa kamida tusaale ahaan in uu cunugu guriga lagu nool yahay guriga ayaa lagu nool yahay tusaale ahaan cunugu wuxuu leeyahay duties wax leeyahay waajibaadyo uu guriga dhexdiisa ku leeyahay jirta inuu ignore gareeyo marka waajibaadkii guriga uu lahaa ma ahan waxa kamida arrimaha lagu garto marka in gurigii waajibkii uu ku lahaa oo tusaale ahaan cunugu markii sariirtiisii ay gogolan tahay raashinkiisii karsan yahay in uu inta soo baxo miiska cuntada fariisto inuu yiraahdo hooyo cuntada isii asagoo 13 sano iyo ka weyn jira waxa weeyaan waa uusan biyo xitaa soo shubanayn glass biyo way dhacdaa familada glass biyo inuu soo shubo waxyaabaha disable gareynaya kamid tahay xitaa oo cunuga ka dhigaya inuusan wax activity samayn biritoolana noloshiisa dambe saameynay waxa kamida inuusan oo arinta ugu weyn oo lagu fahmaa ay tahay oo symptomska calaamadaha lagu garta kamida in uusan waxba wax la yiraahdo cunugu markuu iskuulka weegi ka soo laabanay wali maalmaha arbacada u badan tahay in la soo siiyo homework wax la yiraahdo okay shaqo guri shaqada guri inuu ama iskuulka dhexdiisa ku soo tuuro warqada shaqada guriga homework ama soo boorsada inta iskuul baaga dhex galiyo inuu san wax ila iska saarin oo san sameyn calaamadaha lagu gartay kamid tahay cunugaasi marka wuu og yahay wax in homeworkaas laga rabo inuu Friday-da handi gareeyo inta badan Wednesday baa la soo siiyaa Friday waa inuu handi gareeyo ogow abaadiro ciyaal badan oo kumanaanaha cunugan iskuulka la dhigta
iska saaray xil inay hawshan loo diray soo qabtaan shaqo guriga isaga waxa ku qasbaya waxay tahay waa anshax xumo wuxuusan xil iska saaraynin shaqadii iskuulka wuxuu og yahay inaysan waalidku waxba ka dhahaynin macnaha taasna bedelkeeda waxbuu samaynayaa marka cunugu waqtigaas uu helayo bedelkeeda waxbuu samaynayaa hadduusan cunugu waxbarashadii ku mashquulsanayn wax kaloo mashquul ku yahay dhibaatada ugu weyn bay ka mid tahay cunuga waxyaabaha calaamadaha ka mid lagu garto waxaa ka mid ah iyadana inuu cunugu 24/7 game haysto guriga oo uu game ku dhagan yahay oo uusan totaliba hal istilaab u qaadaynin waajibaadkiisii looga rabay inuu gubto weekly ama maalinle ha ahaa ama bil ha ahaa intaba taas marka waxay muujinaysaa waqtigii xagga looga baahnaa xagga ku beerdareynaya meel kale ayuu ku qabanaya taas waa dhibaatada ugu weyn runtii oo keeni karta arrinta ku xigtaa waxay tahay oo macnaha calaamadaha arrinta macnaha calaamadaha kale guriga ay waalidka loo baahan yahay inuu arko wuxuu noqon karaa waxaa ka dhacda inta badan behavior problemka ayay noqonaysaa anshax xumada dhibaatada inuusan gurigii cunugii macnaha qaabkii loo baahnaa inuusan u dhaqmin oo uu qaab qaldan u dhaqmo xanaaqo tusaale ahaan cunug baad arkaysaa markii lagala hadlo waxyaabaha saxda ah oo waajibkiisa ah wuu xanaaqaya wuu caroonaya caradaasu marka macnaheedu waxay tahay wax kale ma ahan wuxuu diidayaa waxa saxda oo loo sheegayo inuu qaato inuu dhageysto ama ay maskaxdiisa gasho uu diidaya complete ahaanba taas marka waxay keenaysaa calaamadaha ayada kamidana in lagu garto sidoo kale waxaa kamid ah school communicationka marka iskuulka la sameeyo la yiraahdo waalidkaaga nookeen inuusan iskuul cunuga ogeysin waalidka waa loo soo sheegaya inkastoo waalidka aan ognahay in warqad loo soo dirayo ama la soo wacayo haddana qaarkood ma ogeysiinayaan oo ma u sheegayaan waalidkii maanta waxa dhacay waxaa ka mid ah sidoo kaleeto oo dhinaca waxbarashada ah weliba arrinta ugu muhiimsan halkaas weeyaan cunuguda moor uu waxbarashada ka mashquulo oo uu ku guul daraysto waqtigaa badan wuxuu ku bixinayaa dhinaca xumaanta waxaa ka mid ah waxa la yiraahdo detentionka school detentionka waxa la yiraahdo iskuulka normally cunugu dambi buu sameynayaa caruurta in la dilaahay waa xaraam ayaa dalkan la yiri waa mamnuuc macallinku marka ma dilayo cunuga iskuulku wax ugu sheegaya marka wuxuu sheegi waayo ama uu dhageysan waayo ama uu ixtiraami waayo macallinkiisa ama uu shaqadii loogu talagalay qaban waayo waxaa la leeyahay duqa qolka detentionka la yiraahdaa waa la xirayaa macnaha saas weeyaan waa la reebaya iskuulka lagu reebaya haddaad aragto marka cunugaagii oo lagu reebay iskuulka dadku inta badan xiliska masay calaamadaha ah in uusan cunugani hore u socon oo uu somewhere meel uun in problem ka haysto ayay cadeynayaan marka inta badan marka maxaa dhacda markii detentionka cunugiisu bato waalidka waa loo yeeraa dhibaatada dhacda marka waxaan galnaa difaac waxaan leenahay waa cunuganagan loogu yeeray maya cunuga waa la cunsuriyeynaya wax kaleetaan ka fikiraynaa in la cunsuriyeeyo cunuga ama la dilo ama macalinku uu dhibaateeyo sharciga dalkani ka hor imaanaysaa straight away waxa weeyaan waa prosecution macnaha maxkamadu aadaya hadday ku caddaato marka intaa adiga ilaalinaysa cunugaaga ayuu macalinku intoo kale is ilaalinaya way dhacaan dad macallimiinta qaar oo xun yihiin laakiin haddana inta badan sharcigaa ilaalinaya cunugaaga marka cunugii markii loo yeero waalidkii meeshii laga rabay inuu cunuga fiiriyo yiraahdo war cunugan intaanoo problem baa dhacaysa hal mid ka mid ah cunugani kuma guuleysan intanoo qaladaadan uu sameeyey meeshii macnaha la saari lahaa eedda cunuga waxa waalidkii baa soo istaga wuxuu leeyahay macallin cunugayga waa la cunsuriyey waa la dhibaa waxba lama baro haddana waxaa iskuulkana inta badan record buu cunuga ku leeyahay lagu qoro wax walba uu sameeyey iyadoo recordkii meeshii la haddana aan ignore garaynayna marka arrintaas marka arrin cunuga faa'iido u leh ma noqonayso cunugii markuu arko marka inaad difaacaysid qaladkiisa waa inay fiiriyaan
sababta waan sababta la eegaa sababta waa inay intaan la fiirin cunuga iyo macalinka intaan la fiirin sababta keentay in waxa la isu yimaado oo cunugan detentionka lagu sameeyo waa in la fiiriyaa taasaa muhiima taasayna ka dhex muuqanaysaa waxa runtii meesha ka jira xaqiiqda straight away waxaad ka fahmaysaa markii maantay detentionka macalin baa oo ka ima referral ay wax la raadey leeyihiin macalinka detentionkan sameeyey maadadiisa cunugan siduu ku yahay waayahay waa very tricky taasaa waxay kutusinaysaa qaladkan inuu cunugani leeyahay iyo inuusan lahayn marka waalidka hubsasho wuxuu ka dhigan karaa maadada macalinka uu dhigo siduu ku yahay ardayga haddii marka uu ku xun yahay taa calaamada waxay dhigay macalinka inuu saxsan yahay ma u galnaa wixii xala markaa ay noqon karto mise waxyaalo kaloo calaamado ah oo waxaa jira weliba guriga gudihiisa ayaan aad isleedahay waa loo baahan yahay in isha lagu hayo la fiiriyo guriga gurigiisa xitaa maahan cunuga tusaale ahaan magaalada ayaa loo diraya tusaale ahaan waxaa leeyahay bulshada siduu ku yahay cunugaagu waa inaad og tahay xitaa hadduu guriga ku fiican yahay xiriirka iyo nolosha uu la wadaagi karo bulshada kaleeto xitaa waxaa dhacaysa macnaha calaamadaha kale oo runta inta badan lagu garto wayna dhacday runtii waan arkay waxaad arkaysaa cunug yar caruurtu timetable inta badan leeyihiin caruurta iskuulka laga sugayahay oo 8 morning raba inuu iskuul taagnaado 7 na kaco oo uu qubaysto uu isdiyaariyo subaxii marka cunuga xilligaa la raba inuu kaco 7 o'clock waa inuu sariirta ku jiraa oo jiiftaa habeenkii xilli hore waa inuu 7 o'clock ku jiraa 6 ilaa 7 maqribnimo waa inuu ku jiraa sariirtu seexan lahaa waayo xilli moonina laga rabaa inuu kaco maskaxda bini aadamkuna waxaan fahamsanahay haddaysan nasan oo aysan helin caruurta especially haddaysan helin jiif ku filan iskuulka wax badan kama sheegaya maba fahmayaanba wixii lagu shubay maskaxdii baa daalan taasi marka waxay keentay cunugii marka caruurta qaar waxaad arkaysaa marka 5 saac oo habeenimo ama 7 saac oo habeenimo 10 sano ilaa iyo 15 sano cunug caruur dhaxaysa oo wadada taagan macnaha highwayga magaalada high roadka magaalada haddaad aragto marka cunugaas wixii iskuul baa laga sugayaa ama se game cayaaraya inta qolka xirto game cayaar guriga gudihiisa waxaweyaan marka waxyaabaha dhaqan macnaha calaamadaha lagu fahmo inuusan cunugu right direction u socon uusan wada saxan ku socon waa very obvious wax cad weeyaan wax la fahmi karo weeyaan laakiin waxay ku xiran tahay waxaan dhan waxay ku xiran yihiin awaadir sida waalidku uu ugu diyaarsan yahay ama uu isagu wax uga qaban karo arrimahaas oo dhan haddii marka waalidku uusan isagu arrintaa wax ka qaban karin waxaa la rabaa in waalidku uu xilli hore fahmo waayo takhaatiir waxay ku fahmahaan prevention is better than cure marka xilli hore haddaad fahamto kahortagu waa ka wanaagsan yahay daaweynta marka haddaad xilli hore fahamto marka inaad wax ka qabataad isku dayeysaa haddaad wax ka qaban weyso waxaad helaysaa xaqiiq weeyaan ama ehelka ama qaraabada ama xitaa maaragtay hay-adaha dawliga ah oo ku caawinaya in ay wax ka qabtaan arrintaas tusaale ahaan waxaa dhacda hooyo keligeed nool cunugeedu uu gaaray 15-16 sano inuusan waxba ka maqlin oo u haysto guriga inuu leeyahay wuxuu rabo uu sameynayo maamadii uu ignore garaynayo aabe ama uu la joogo ama uusan la joogin problem weyn bay noqotay haddana waalidkii ay yidhaahdaan cunugan haddii la qaato oo ay socialsku qabtaan adiga dhib bay kugu tahay waxaa xaqiiqa socialka ka cabsadaan waalidku kama yeelayaan cunugan 7 o'clock inuu soo jeedo waraas sariirta galbaa leeyahay ma laga yeelayo si xal leeyahay waxaa laga yeelay inoo kaleeto inuu game 24 hours waxaa loo qabanaya half an hour cayaar baa leeyahay halkan soo fariiso homeworkaaga samee marka time table baa lagu qabanaya marka dambe indhuhu taagtaagaya wuxuu leeyahay war waalidkiyaaba ku roonaaba oo saan ka flexible sana laakiin in la ilaaliyo marka cunugaaga ood gacanta ku haysaahay waa very important oo inuu hay-ad dawlihi la wareegto ama qof kale lagu wareejiyahay wax wanaagsan ma aha ama qofaan ku diinahayn lagu wareejiyo laakiin calaamadahan markaad aragto waa inaad hortogeeda leedahay waa inaad steps qaadan kartaa waxa ugu dambeeya sameynaysaana waalid ahaan waa inay noqdaan haddii cunugani uusan waxba aysan gelin positionkaana uu joogo da'daana uu joogo waxaa jira da very challenging oo runtii aad maaragtay u ah u adag
inta badan waxay ku xiran tahay da'da cunug soo active u yahay ama uu edeb darada u yaqaano runtii laakiin waxaa la yiraahdaa 13 wixii ilaa iyo 18 waa adagta marka gabdhaha iyo wiilasha waa same inkastoo gabdhuhu ay runtii aad uga wanaagsan yihiin wiilasha macnaha waa ka wanaagsan yihiin ka muuqda waxaan ka wada waa ka degan yihiin waa ka way ka jilicsan yihiin wiilashu haddii ay problem ka dhex galaan way adag tahay si loo soo celiyo laakiin gabdhaha is very easy saasla way fududahay waayahay xaalaha kale guud ahaan xalka aad u aragtay kan qaybta dambe barnaamijka aan ka dhigno hadduu ilaahay yiraahdo qaybta ugu horeysaniyow abaadir waa mahadsantahay tan koowaad horta familku qoysku waa waalid iyo ilmo waxaan jeclaan lahaa ba horta inaan taas muhiimadana saarno isfahamka iyo xiriirka waalidka iyo ilmaha u dhexeeya horta in la hagaajiyo marka taas arrimo badan ay saameyn ku yeelanay cunugii noloshiisii saameyn ku yeelanay waalidkii noloshiisii saameyn ku yeelanay dhaqankii saameyn ku yeelanay qaabkii iyo lifekii iyo qaabayntii mustaqbalkiisana saameyn badan bay ku yeelanaysaa marka xiriirka waalidka iyo caruurta u dhexeeyahay waa in uu aad u hagaagsan yahay see loo hagaajin karaa ma aha cunugaaga saaxiibaan laahay caruurta ma ahan in aad positionka uu taagan yahay oo caruurtinimada inaad ma caruur la noqoto ama saaxiib ama walaalkii oo kale ama walaashii oo kale inaad positionkooda istaagto laakiin adoo waalida respectigii qadarintii iyo mas-uuliyaddii waalidnimo adoo haysatid ayaa waxaa la rabaa inaad dictate garan kartid macnaha yeerin kartid صح awaamiir iyo si caqliya iyo qaab aqoon ah adoo inaad yeerin kartaa la rabaa waxa aad adigu ka rabtid cunugan iyo waxaad rabtid in lagu sheegto isagoo adoo tusaynin cunugaagu inuu dhibsan karo ama ay tahay wax la dhibsan karo marka communicationkaas ama xiriirkaasi waa inta badan meesha aan Soomaalida ku guuldareysanay tusaale waxaad arkaysaa oo u badannahay runtii carruur baa joogto waxa leeyahay wareey waan sheekaysanaynaa naga taga qolkaas gala buuq baad nagu dusheeni qolkaas ay ku jiraan cid la hadasho ma laha game bay ciyaarayaan BBC bay fiirsanayaan kanaalo kale tay fiirsanayaan waa big problem daqiiqada yar ayay is arkayaan waalidkii iyo carruurtii halkaas xiriir kama jiro waa runta waxaan ku soo xasuustay ayaan dhawad ayaan xabsiga soo booqday dhalinyarada ku jirta ma sha Allah waraysi aan la yeeshay mid kamid ah wuxuu igu yiri walaalkay iga weyn weligii qolka gal ayaa la dhihi jiray intuu yaraa ilaa uu ka weynaado hadda isagoo weyn ayda waxaa arkaysaa isagoo oo aanan cidna amrin inuu baxo qolka iska galo soo xirto iskuul ka yimaada qolku galaa kama baxo shaqo ka yimaada qolku galaa kama baxo aniga marka mar rabo yiri inaan walaalkay kala noqdo waa u jeedaa yar xabsigu galay oo yaraantiisa lagu hagay qolka gal marka uu ka leexday wadadii waalidka ay la rabeen wada kale uu qabsaday wax ka maaragtay waaniyo wadada uu qabsaday ma uusan helin marka taa way jirtaa ee qolka gal kaliya xal ma aha waxaan ka wadaa markii la wada hadlo cunugaaga waa inaad hawsha guriga aad wax ka siisaa waa inaad waqti siisaa waa inaad la hadashaa waa inay jiraan communication way wada hadal ah oo adiga asagu aad mar walba wax ku qaybsanaysaan marka haddaadan ku xiriir la lahayn waxbarashadiisii homeworkii guriga shaqadii ahayd tan guriga shaqada ah waajibaadkii guriga uu ku lahaa adiga asagu haddaanan wax badan wada shaqayn wax badan ma wada hadli kartaan jira dhalinyaro aanan jeclayn waxbarasho xabsigan kusoo arkay laba ka mida waxay igu yiraahdeen anigu waalidkii waan u sheegay waxaan rabaa inaan shaqaysto sababtaan u shaqaysanayo waxay tahay inaan dharka ilmaha kala iibsaday inaan iibsado kabahay wataan inaan wato ma sugi karo inaan waxbarasho galo oo ma garanaysaa aan dhameeyo kadib ma sugi karo hadda waan rabaa wuxuu yiri waalidkii way iga diideen waan cararay hotel waxbaan ka shaqeeyay kadib waalidka iga xoog badiyay hotelkii waa laga reebay lacag laana igu dhacday iskoolkii aan tagaa aakhirkii marka dambena mobile telefono ayaan dhacay si aan u iibsado wixii aan rabay laakiin anoo shaqaysan karaan iibsan karo yiri horta marka taasna waxay noqonaysaa is-afaham waa waalidka iyo caruurta kamid ah taana maxaa dhihi lahayd xalka dhinac kale tana waa very important waa very good interesting point waa point muhiim ah weeyaan ka wada abaadiro cunugaas tusaale ahaan caruurta noocaas cunuga
horta markaan ku leeyahay marka hadaytaan ka hadalnay parental responsibility waxaan ugu magac darnay oo ahaa waajibaadka waalidka cunuga waa in loo xiraa dharka uu magaalada ka rabo cunuga waa in la siiyaa waxyaabaha uu u baahan yahay inuu mobile dhaco oo uu iPhone gato ama uu surweel jeans oo si u talan uu gato cunugaaga 17 sano jira meeshan carruurtu marka laga bilaabo 13 sano waxaa looga xisaabtamaa inay yihiin dad waaweyn maskaxdooda kale waayo wax walba garanaya saas daraadeed sheekadii ahayd wariyaa soco iyo in carruurta waxaysan ku qanacsanayn loo gado waxa weeyaan waa dhibaato weeyaan waalidku marka iyaga qayb ku leh arinta noocaasa inuu marka cunugu shaqo raadiyo maxaa keenaya waxaa keenaya inaan baahidiisii laga turjumin inaan wax laga qaban waa muhiim marka tani waa qodob muhiima una baahan dadka waalidiinta ah inay ka fiirsadaan canuga waxa uu u baahan yahay in la siiyo weeyaan tusaale ahaan iskuulka waxaa dhacda ciyaalku waxbay jecel yihiin boorso yar ay hadda qaataan sooma arago Adidas ay ku qoran tahay oo iskuul baaga carruurta iskuulada hadda tagto dhan inta badan ku arkaysaa way wataan marka boorsadaas oo kaleeto waxba ma joogto 10 pound 15 pound bay joogtaa cunugaagu markuu iskuulka tago carruurta iskuulka boorsada wataa waxaa loo arkaa inay yihiin carruur xoogaa dhaqaalaha haysata waayo jawiga la haysta xoogaa rabitaanka cunugay ka mid tahay waxbana kama dhibayso waxbana kuma zaayidinayso marka in loo gado oo boorsadaas gadid haddaad diido tiraahdo marka war ma gadaya midaan ay boorsada nimanka xamaaliyaasha qaataan oo ay garabka gashtaan oo warhaysada looga shaqeeyo iskuulka ku aad cunugaagu habi kuma noqonayo inuu ka xishoodo gaaraysaa inuu bulshada dhex galo taas waxay ku qasbaysaa inuu raadiyo shaqo si uu lacag u helo oo uu xorbo gato marka waxa waa wax muhiim ah carruurta horta in laga hadlo carruurta aan waxbarashadooda aan u soo noqono marka carruurta aan waxbarashada jecelayn cunuga horta wuxuu wax jeclaan karaa ama diidi karaa marka uu dhammaysto waxbarashada hoose inta badan carruurta waxay weylar ku noqdaan high schoolka meesha problemku ka jirana halkan weeyaan markii cunuga marka maxaa keeni karaa cunug aan waxbarasho jeclayno ma jiro laakiin waxbarashadu hal waxbarasho ma aha leanno adduunka aqoontu way baahsan tahay waxaana xaqiiq ah meel uu cunugani ka jecel yahay inay jirto waxaa dhacda marka waalidkii ma diyaarsana iyagii aan waxbaran oon aqoon lahayn cunugii waxay rabaan inay ku qasbaan ku bushgareeyaan wax uusan samayn karin marka ilaa iyo xilliga high schoolka oo dugsiga sare la yiraahdo carruurta halkan year 9 year 10 year 11 year 12 waxaweyaan waa xilliga ay la dhisayo oo GCSE-ga ay disigii ku guul dareysto cunugii uu og yahay inuusan mustaqbal badan samayn karin waayo A level lama samayn karo hadhow tolo way ku adkaanaysaa hadduu damco inuu sameeyo jaamacaddana waa problem mar walbaba failarku meeshuu guuldarradu meeshay ka bilaabataa waa halkaas waxaa la rabaa marka year 8 ba dabayaaqadiisa inaad fahmi karto wuxuu ku fiican yahay wuxuu ku xun yahay maadooyinka la barayo maxaa kamid ah science kamid ah waxa kamid ah maths English kamid ah all maadooyinkaas la barayo dhan waa inaad adiga shakhsiyan mid u daristaa cunugaaga waa inaad soo qaadataa waxa iskuulka ka yaala oo ah maadadu ku fiican yahay maadadu ku xun yahay intuu score grade imtixaankan intuu miduu low class keenay deetana aad asaga kala sheekaysato tira maadadan maxaad ku tahay maxaad ku nacaysaa maxay kuugu adag tahay inaad fahamto marka hadday jirto qaab loo fududayn karo oo ah tuition ama in guriga wax lagu barano inaad macnaha tuition geyso fududayso haddaad aragto inaysan maskaxdiisa gelayna maadooyinku ku fiican yahay oo uu jecel yahay inaad siiso weeyaan marka waxaa dhacda inta badan cunugu asagoo ka cararaya maadooyinka adag maxaa ka mid a maadooyinka mustaqbalka anfici doona ama geyn doona high schoolkiisa tusaale ahaan markii la dhaafo oo la yidhaha A level ama jaamacad la gaaro ama college ba maadooyinka anfici doona waxaa ka mid a science-ka oo kaleeto English-ka oo kaleeto iyo maths-ka oo kaleeto taas marka hadduusan saddexdaas maado ku fiicnaan waa inuu ugu yaraan laba ka mida ku fiican yahay hadhow toolo marka mustaqbalkiisii marka cunugii guul daraystay GCSE-gii oo uu A level aado A levelkii guul daraystay oo uu success ka noqday waxaa imaanaysa inuu college markuu joogo inuu arko ciyaal shaqaysanaya by the age of 17 markuu soo gaarana 17 markuu soo gaarana waa qof weyn oo kaleeto wuxuu u baahan yahay intaad u baahan tahay wuxuu rabaa inuu wax si wado mobile qurux badan buu rabaa latest wuxuu rabaa labisida ugu dambeeya marka waalidka waxaa la rabaa inay aware ku yihiin inay ka war hayaan intaysan imaan xitaa in wax loo sii diyaariyo at least sanadahaas
aan soo sheegnay ilaa iyo 13 ilaa 14 wixii ka koreeya ilaa 18 in lagu lahayn karo cunugaas oo la provide gareyn karo la siin karo waxyaabaha u baahan yahay waxbarashadana lagu maaragtay lagu dhiirigelin karo waxaa soo hartay caruur waxaa jirta marka waxbarashadii saas oo kale ay ku adkaatay ka tegay waxbarashadii collegekiina iska drop gareeyay shaqaystay anigu markaad aragto marka inuu shaqaysanayo age-ka 19 aad gaarto ama uu 18 gaaro ama 19 gaaro وحلقي جامعة عادلها وانا أركتين وضرب قريه وحاجة alternative choice أو معناها فرصة كلا أو عنو قاسو بنان أو حكو بران كرو حكو سمين كرو نلوشي سنو أكو بدلي كرو ولبا لغا يابا عنو جيدسنا أو قرحوناي انتا لسو حابيني إنو اسكو كلاس فريستان أما وكاكا سارة مرة جامعة marka laga hadlayo high education oo maxay tahay waxa dhacda carruurtan markii ay lose gareeyaan tusalaan anigoo kaleeto Soomaaliya wax ku soo bartay nolosha asaasiga waxbarashadeedii hoose iyo waxa marka halkan imid ee level halkan kuma sameeyay saan u sameeyaa marka jaamacad saan u diyaar process kaas marka waxa loogu talagalay dadka waxbarashadooduna somehow dhisan tahay doonayeen inay higher education u gudbaan tusaale ahaan sameeyaan degree-ga ugu horeeya oo ama maaragtay second degree oo dalkan amaba higher education kaleeto oo master level diyaarinaya taas marka haddaadan marka cunugii uusan informationkaas waalidku haynin way adag tahay maalinta la arko inuu koleedkii ka saaqday oo uu shaqaystay oo shaqo iska galay ama uu ceer qaatay waa iska daynaya marka 20 sano 25 ku gaarana maskaxdiisu way sii adkaanaysaa abaadir horta jaamacado badan ayaa provide gareeya oo sameeya koorsooyinkaas waxaa la yiraahdaa foundation ama access course yaa la yiraahdaa access course waa 2 years maximum marka jaamacadda markaa tagtid open day oo kale tuu qofku tagaya waalidka raacaya inta badan dad badan oo waalidiin ah hadda carruurtooda wadnoon geynay oo dalkan inta ku dhasheen ama Yurub ku dhasheen waxbarashadii ka saaqday uu weynaaday 20 buu gaaray hadduu og yahay waxbarashada waxa ay leedahay waayo shaqadii uu qaban waayay adkayd man handling-ka ah marka waa la geynayaa qaybo waxaa jirta marka jaamacadda loogu talagalay oo arintaas ka shaqeysa dadka inta badan dadka naguna informationkaas waa ku yeerihiin dadka cadaanka ah inta badan waxbarashada way ka tagaan okay laakiin way ku soo laabtaan koorsigaas marka labada sano qofku markuu sameynayo 4 bari ama 5 bari ayuu jaamacadda tagayaa 5taas bari ama 4taas bari waxba loo dhigayaa koorsooyinka la siinayo credit wax la yiraahdo ay koorso walba leedahay marka waa inuu la yimaadaa si uu degree-ga u diyaariyo 120 credit ah ugu yaraan total coursigaas waa 2 years laakiin maadooyinka majuulada lagu dhigayo ayaa ilaa iyo 12 majuul weeyaan oo kala duwan subjects tusaale ahaan physics-ka waxaa laga barayaa A level wax u dhigma darajada koowaad chemistry-ga A level wax u dhigma laga barayaa maths-ka waxaa laga dhigayaa A level oo kaleeto wax la yiraahdo study skills ayaa la barayaa qaabka wax loo barto qofku waayo maskaxdiisu way adkaatay marka ama se muduusan wax baran study skills-ku marka wuxuu ka saacidi doonaa sida research-ka loo sameeyo tusaalahan inuu cunugu inta computer fariisto uu ka soo saarto journal ama book latest la qoray oo waxbarashada la xiriira oo haddana aan ahayn kuwa boog ah ama illegal-ka ah ee ku jira uu kasoo download gareysanayo kasoo saaranayo database la yaqaan oo la hubo oo jaamacadaha ay siinayaan taas marka waxay ku saacidaysaa markuu dhameeyo degree-ga straight away uu gudbaya cunugu degree-gu fariisanaya marka horta runtii waa u jeedaa talo fara badan oo ka buuxda adduunyadana waad ogtahay waa waqti anuu aad iyo aad maaragtay ugu xun ayaan waxaan jeclahay barnaamijkana uunu gabagabay yahay inaan kula socodsiiyo ayaan ka xumahay jeclaan lahaa in halkan inaan sii wadno ahniyo de wixii talaha waan sheegnay dar waa mahadsan tahay waxyaabo badan oo waxa jiraan dhinaca waxbarashada ayaan aad u danaynayay runtii aad u fiirinayay waayo carruurtaasi waxbarashadooda loo saacido ka tagay waxbarashadii kuwa waxbarashadooda wata waa fine waxaan oran lahaa marka way la soo xiriiri karaan gaar ahaan waxaa jirta charity aan la shaqeyno oo la yiraahdo Somali Support Association oo website-ka ku jira telefonkayga halkaas buu ku jira haday telefonkayga soo helaan waa dadku waan ka wada xiriiri karnaa wayna jiraan runtii carruur badan oo hadda high education-ka u gudbay oo jaamacad oo gacan siinoon geynay tusinay process-kan inay maraan runtiina u arkay short
form oo ay dadaalayna laakiin waayo dadaal badan baa laga rabaa caruur badan oo iyagana waxbarashada ku fiican oo helbi kale tala siiya way jiraan runtiina waxaan oran lahaa aynu annaga dhanu tashano wax aanu warbixinta isku gudbino aynu wada xiriirno dabeed wixii problem uu haysto safiir ah oo runtii aad u adag oo u baahan caawimaadna insha allah wax weeyaan waan ka caawinaynaa haddii alla idmo abaadir wana diyaar baanu nahay taas waa mahadsan tahay daawadayaal waxaan ku jirnay barnaamijkii taliya tusaale aynu maanta ku wareysanaynay cabdixaashi aakhiro aan jeclahay inaan wax badan ka faa'iidaysanay isagana aad iyo aad ayuu ugu mahadsan yahay ilaahay ajri xasanaad allaha ka siiyo waxaan daawadayaal aan kusoo gabagabayneynaa barnaamijkan halka kan ayaanu kusoo gabagabayneynaa intaanun ku kulmi doono mar kale wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu